السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبيال كسولي ولا channelka maxamed cabdi haddii aad ka cusub tahay channelka fadlan subscribe like iyo share videogan dubayna wuxuu ku saabsan yahay deeq waxbarasho oo uu bixinayo Islamic Development Bank bangiga horumarinta islaamka waxa weeyaan waxa la bixiyaa deeq fara badan adduunka deeqahaas Soomaalidu aad baan aan u fahansanayn markaas kulli sanadahan dambe ayay in badan soo yar fahmayaan deeqdan waxaa kamid tahay kuwa ugu muhiimsan adduunyada ay bixiso gaar ahaan wadamada muslimiinta ay bixiyaan iyo hay'adaha ama institutionska islaamka waxa bixinaya Islamic Development Bank kusoo dhawaada videogan oo ka hadlaya si koobanna aan soo koobi doono sanadkan xareyntiisa iyo arrimaha la xiriira xareynta scholarshipkaasi ugu horeyn marka aynu ka hadlayno scholarshipkan sanadihii ugu dambeeyay kulli waa xareeyaan Soomaali badan qofkii yaqaan waa yaqaanay qofkii aan aqoonina imika ayuu fahmi doonaa insha Allah markaas waxaa jirta shuruudaha ugu waaweyn waxa kamid qofka horta inuu islaam yahay oo muslim yahay markaas ayaad arrimihii kale iyo informationkii loo baahnaa kalena markaas aad submit gareynaysaa aad xareynaysaa kadibna the probability ay Soomaalidu ku soo baxayaan iyo dadka kale ku soo baxayaan iyo adigu shakhsiyaantaada ku soo baxayso hadba waxay ku xiran tahay qualificationska hore aad sidato iyo qormooyinka iyo nidaamka aad u xareysay saxda ah iyo dariiqyada raacday iyo inaad criteria-dii la qaadanayay aad ku soo baxayso shuruudo ayaa jira shuruudahaas marka meesha ku qoran ayuu baynu eegi karnaa insha Allah oo aan intusi doonaa ugu horeyn walaalayaal waxaad samaynaysaa ama waxaan intusi doonaa programkan isaga ah arrimaha overview-giisa ama hordhaciisa ugu horeyn waxaynu imanaynaa website-ka official-ka ay leedahay ama ay leeyihiin Islamic Development Bank waxa markaa website-kooda official-ka uu yahay isdb.org qaybta scholarship-ka ayaan ku jiraa ama home page-ka qaybtaas web page-ka markaas overview waa kan si guud ahaan markaynu eegno waa kan marka qormadan sare title-ka aad arkaysaan the bank funds and implements its scholarship programs as part of its overall efforts to develop the human resources of its member countries and those of the Muslim communities in non-member countries scholarship bangiga uu bixinaya ama fankan waxa weeyaan waa scholarship program kaas oo qayb ka ah dadaalada guud ay bixinayaan ay maaragtay ku horumarinayaan bini'aadanka ama wadamadan dadka ka soo jeeda wadamada kamid ah bangiga horumarinta islaamka ee muslimka ah iyo wadamada muslimiinta ah sidoo kale aan kamid ahayn bangigaas labadaba waa furan yahay haddii wadanka uu kamid yahay Islamic Development Bank iyo haddaanu kamid ahayn oo aad muslim tahay labadaba waa ku furan yahay halkan waxaad ku aragtaan there are 6 scholarship programs offered by ISDB markaas lixda program ay soo bandhigeen scholarship-ku oo ku halkan ku qoran undergraduate masters PhD postdoctoral research program ISDB ama waxaan leeyahay technical vocational education and training markaas adartaas waxa ku qoran ka afraad oo ah technical vocationska waxyaabaha gacanta farsamooyinkaas oo Bangladesh Afghanistan, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Chad, Comoros, Djibouti, the Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, and Yemen. aad iyo aad baa dadkaas wadamada ka soo jeeda ay maaragtay chance badan markaas waad aragtaan programkaas isaga haddaynu eegno ka shanaad ee scholarship-ka qaybta shanaad waa bachelor studies-ka qoyaha research-yada iyo arrimahaas la xiriira sameynaya soo sameeyay undergraduate-kana qaatay iyo qaybta ugu dambeysa oo imika ah waxa la yiraahdo World Academy of Science qoyaha teknolojiyadda iyo maaragtay arrimaha wax soo kordhiyay markaas haddaynu eegno ujeedada guud waxa weeyaan programkan waxa loogu talagalay wadamada muslimiinta in dadkooda lagu horumariyo kaas oo la dhisayo aqoontoodii si ay maaragtay wadamadoodii ay wax ugu taraan oo dadkaas talented-ka ama maaragtay maskaxda
furan ee maaragtay aqoonta heerka aqoontoodu aadka u wanaagsan yahay in wadamadoodii ay maaragtay ay iyo adduunyadaba inay horumarin sameeyaan oo ay wax bartaan ayaa ujeedadiisu ay tahay programkan. Conceptiga guud ee uu leeyahay amaba fikradda guud amaba aragtida arrintan iyada ah waxa weeyaan wax kale maaha, waxa weeyaan waa horumarinta bini'aadamka waxa la yiraahdo maxaa sheegay socio-economic conditions wadamada muslimiinta iyo bulshooyinka muslimiinta kor loogu qaaday. Waana qardul xasan, waa interest free loan. waxa weeyaan waxba laga qaadi maayo lacag, adiga unba wax lagu taraya, dhaqaale badan lagu siinaya. Horumarintii bulshada muslimiinta ahayd ayaa programkan isaga daaran yahay. haddaad hoos u raacdaan waxaad arki doontaan qormooyin fara badan. Markaan iska dhaafayna ujeedadeenu maaha inaynu maaragtay halkan aan kusii yar dahdaano. waxaan ognahay in dadka muslimiinta ay jaanis u haystaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto programkan isaga ah. haddaynu halkaas ka tagno waxaynu tegaynaa emailkaygii, maadaama anigu aan user ku leeyahay website-kooda officialka ah oo aan sanadkii hore xereeyay balse aanan jaanis ku helin inaan soo baxo. waxaa laga soo diray fariintan ISDB scholarship, the new call of applications for the academic, wicitaan cusub oo sanadka akademiyadda academic yearka 2021 iyo 2022 ee uu ahayd deeqdii waxbarasho ee Bangiga Islaamka ayaa markale lagu wacaya. markaas 28ka February 2021 ayaa ku tahay. waxaa aad loogu dhiirigelinayaa opportunity-gan ama fursadan in ay ka faa'iideystaan dadkii hore u tartamay markaan kusoo bixin doorkii hore iyo dadka cusub ee imikaba. labadan linki halkan ku aragtaan waa SDP website-ka ay leeyihiin oo xagga hoose soo dhigi doona iyo scholarship portal-ka qaybta laga xireenayo. inta badan waxaa laga yaabaa qofku inuu arki waayo meeshii laga xireenayay hadduu website-ka caadiga galo, laakiin waxa weeyaan linkigan xagga hoose idin dhigi doona insha Allahu tacaala. haddaynu eegno qaybta halkaa kaga nimaadno oo aynu nimaadno qaybta scholarship-ka laga xireenayo portal scholarship portal-ka waatan markaad gudaheeda soo gasho waxaad sameynaysaa sida caadiga dadka kale way fahmi karaan. qofku markuu uu soo galo website registration-kii oo kale uu sameynayo inahaas way iska fudud yihiin. anigu already waan is register gareeyay. markii aan is register gareeyay waxaan sameeyay maxaa sheegay report-kaygii ayaan save as draft waan iska sii moogtay buuxiyoon. markaas waa kan halkaas maaragtay markaad soo diiwaan geliso emailkaaga soo geliso password soo geliso apply for scholarship baad oranaysaa. programmadii aynu soo dooranay ayaad maaragtay aad eegaysaa. haddii aad graduate ama degree aad diyaarinayso programmada ay bixinayaan iyo waxaad interest garanaysaa aad eegaysaa. haddii aad master apply garanayso ama baad xareynaysid waxaad eegaysaa masterta ay bixinayaan kaad interest garanayso. sidaasaad maaragtay aad ku xareynaysaa dabadeedna aad waraaqihaaga iyo wixiina soo diyaarsanaysaa. marka already waxaan sameynaynaa anigu waxaan sameeyay intii aan buuxiyay maaragtay documentiga ahayd halkan ayay ku jirtaa. markaas waynu gujinaynaa. okay aniga imika waa kan waa qaybahan halkan ku yaala ama taabkaas oo soconaya halkaasaad ka eegaysaa. academic background-ka ayaad gelinaysaa marka horeysa, professional background-ka ama waxbarashada takhasusaadkaagii, master degree haddii aad jirtaan, additional information baad raacinaysaa, attachment-kiisa waxyaabihii shahaadooyinkii, waraaqdii caafimaadka, waxyaaba noocaasa, declaration oo ah marka ugu dambeysa inaad arrinta iyada aad ku qanacaysid oo aad maaragtay aad wax alaal wixii arrimaha la xiriira aad saxeexaysid. markaas intaa ugu horeysa markaad soo buuxsato aad maaragtay kolley waa la fahmi karaa waan filayaa halka bachelor degree university jaamacadda magaceedii waddanka ay ku taalo, faculty iyo qaar ahaan fieldiga aad ka baratay inta sanaad dhiganaysay, GPA-gaagii. halkaa GPA-ga waxaad sameynaysaa GPA-ga oo kale forba jaamacadaha Soomaalida ay inta badan ma garanaysaa sida normal caadiga
markaas halka calaamad su-aasha ku taala ayaa taabanaysaa. Marka haddii aad keentay tusaale ahaan oo kale maaragtay tree oo kale tree oo kale ayaad u qaybinaysaa 3.5 baad keentay tusaale ahaan oo kale 3.5 ayaad 4 u qaybinaysaa. 4 markaad u qaybiso 100 baad ku dhufanaysaa waxaad 100 ayaad ku dhufanaysaa. markaas tirada kusoo baxda ayaad hadba qaadanaysaa oo halkaa aad ka dooranaysaa. yacni bartan ayay ku jiraan tirooyinka soo maaha. markaas waxa laga yaabaa 89kaas iminka dee wuxuu ku yimi system buu ku imanaya. systemkaasna waxa weeyaan keliyaata inaad adigu samaysid maaragtay ruleka aad raacdid halkaa ku yaala. halkaa yar marka taabatay calaamad su-aasha ah ayaad markiiba arkaysaa darajada heerka aad ka keentay. marka anigu iminka 91% ayaan keenay. markaas saasaan ka sheegay. haddii ay shaqooyin kale iyo waxyaabo meel aad member iyo ka tahay ay jirto aad gelinaysaa. halkaasna haddii ay jiraan extra waxyaabo aad maaragtay gaadhay oo ah sida rating works ama project complete waxyaabaad samayso ku daraysaa. okay iska soo dhaaf xaggaas. waxaad timaadaa qaybta professionka. professionka waa kan institutionka ka shaqeyso. name of institutions organizations where you work now halkaad ka shaqeyso wadanka ay ku taalo iyo emailka shaqada. okay supervisor namekaaga ama qofka ku gaargaray adiga inta badan maaragtay ku maamula numberka sanadka aad shaqeynaysay iyo positionka aad ka haysay. okay intaas inahaas way iska fudud yihiin. wixii su'aalaha la yar fahmo yarkaas lagu soo qori doona insha Allah. haddii aad ku guuleysato briefly explain the problem of solving and development relevancy of your research study to the needs of country or region. ani haddii proposalka aad diyaarin lahayd ama xalka aad xalin lahayd markaad waxbarashadan oo kale ku guuleysato ama aad diyaarinaysid bal halkan baad qoraalka ka sameynaysaa. qoraalkaas markaas waxa weeyaan inaad maaragtay aad iska yar habaysid oo aad u fiirsatid weeyaan. inta badan dee qofku markuu waxbarashada ku jiro oo kale oo wadamada joogo waxaa loo soo diraa wadankiisa inuu research ku sameeyo. sidoo kale uu researchkaas uu leeyahay problem baan xalinaya. yacni dhibaatadaas ka jirta dhibaatadaas soo daraasadeynaya heerkeedu intuu marayo iyo sida ay tahay. marka arrimahaas weeyaan. markaas waxbarashadii wixii la xiriiray arrimahaas weeyaan qaybta masterska iyo waxaas haddii aad maaragtay soo dhigatay weeyaan. okay additional information kina waa kan iska dhaaf awarding scholarship as you may require travel to any area in the world. do you have any reservation which may restrict you for travel? ma jirtaa wax adiga ku restriction kugu ama caqabad kugu ama ku joojinaya ama hakin ah haddii waayo scholarshipkan dunidaas baad maaragtay aad loo baahan yahay inaad u baxdid oo aad qabatid oo aad maaragtay markaas ma jiraan yes iyo no midkood un batalo waad markaa no baad dooranaysa. haddii ay yes tahayna dood sheegi. have you applied for an ISDB scholarship earlier? horema waxaa haystay oo kale aad oranaysa ama maya aad oranaysa haday markii kugu horeysay tahay doorkii hore oo kale dad xareysay waxaad waad weydiistaan oo kale markaa waad sheegi previous ISDB scholarshipkaagii hore iyo waxyaabihii maaragtay aad iyo waxyaabaha isbedelayntii aad okay ma leedahay do you have su'aasha sare was a scholarship awarded for your undergraduate studies? ma lagu siiyey no oo kale aan doortay anigu. do you have any special physical needs? waxyaabo qof disability oo kale ma tahay amaba ma dhaawacan tahay amaba qofta adigu lixaadkiisa miyaa tahay? yacni aad baa loo tixgelinaya baan filaya insha Allah haddii qofku yees doorto dee qofkii weeyaan ilaahay dee maaragtay arrinta iyada la kulansiiyey. intee baad heshaa dakhli sanadkii? do you have annual income or any source of income? ma leedahay? inta badan may baan lagu iska doortay waayo iska yariyay dakhligeena ummadda Soomaaliyeed meelaha ay joogaan. barsooriskeenna baa waxaan ku ori dhaqaale iyo lacag marka alxamdulillah wax kasta ilaahay na siiyo ku qanacsanahay. luqadda waa qodobada ugu muhiimsan bay ka mid tahay perfect detail of your language proficiency. markaas haddii luqad international oo kale aad haysid ama aad qaadatay ama aad shahaado international haysid oo luqada ingiriisiga waad gelinaysaa. tusaale kaas aad gelinaysaa language readingkaagii excellent baad ku ahayd waa kaas xaggaas aad soo furanaysaa deetna good fair waa kaas. in case of mentioned holding certificate a copy must be attached. haddii aad tidhaahdo certificate-ka waan haystaa waa inaad kusoo lifaaqdaa halkaas
waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka loo aqbalayo waayo luqadda waxaan jaamacaddan lagu dhiganaya waa luqadda ingiriiska soo ma aha sida shahaadooyinka caalamiga ah ee IELTS-ka iyo TOEFL-ka iyo TOEFL-ka iyo TOESL-ka kuwa iyaga noocaasa weeyaan markaas kasoo laabo professional training courses ma qaadatay ama upgrading waxyaaba noocaas detailed halkaasaad gelinaysaa art details aad taabanaysaa waraaqdan la yidhaahdo reference-ka inta badan jaamacadaheena waxaad moodaa inaanay recommendation letter amaba reference letter aanay bixin baad ayaan aniga kulli jaamacado way bixiyaan dhowri laakiin ma arkin qofka waxaa loo baahan yahay inay isaga khusayso yacni oo ay tahay magacaaga ku xusan yahay Cali Axmed Hebelka ma garanaysaa waxaanu cadeynaynaa in Cali Hebelka uu jaamacadeeda ka baxay inuu inta internship halkaa ku qaatay sidaas ma garanaysaa waana jaamacadii aad ka baxday professorka haysta iyo presidentka haysta iyo arrimaha wayna kuu fududeeyeen ardayda Soomaaliyeed loo fududeeyaa in ay helaan reference weeyaan sidoo kale meelaha ay ka shaqeeyaan ama ay maaragtay professionalska marka dadka ay la shaqeeyaan ay joogaan waa inay inta badan ay siiyaan ama aanay ka qaataan reference letters inuu intaas sanado shaqeynay in intaas sanado shaqada hayay in intaas sanado wax baranay okay arrimaha noocaas weeyaan halkaasaad add free nameskaad halkan ku daraysaa meeshuu ka shaqeeyo nambarkiisa emailkiisa waa halka hoose weeyaan waa qata ugu hooseysa weeyaan marka qaybta aynu imika joognaa waxa weeye waxa la yiraahdo additional information xogo dheeraada attachmentskii aad halka samaynaysaa markaas upload national ID ama passportkii baad upload garaynaysaa halka baad soo gelinaysaa sidoo kale CV-gaagii oo qoran oo generally ah oo aqoontaadii waxa ka hadlay ayaad soo gelinaysaa haddii aad dugsi dhexe tahay oo dee undergraduate aad dugsi aad xiranayso dee waxa weeyaan wixii aad soo qabatay iyo howlahaas iyo maaragtay CV-gaagii runtaana fiican upload certificate of good health from a medical doctor or hospital waraaq caafimaad aad soo qaadatay waa inaad soo gelaysaa iyadana halkaas aad taabanaysaa kusoo upload garanaysaa upload 3 letters of preference halkana waraaqdii ayaad halkii hore magacaynu kusoo sheegnay maaragtay magacyadii kusoo sheegnay halkana waxaad saddex waraaqood tusaalaan jaamacadda waraaq soo qoratay shaqada waraaq soo qoratay organization yaro kala waraaqna soo qoratay saddex waraaqood halkaas aad kusoo lifaaqaysaa markaas transcript-kaagii ayaad soo gelinaysaa shaqada waqtigaad shaqeynaysay waraaqyadana ka hadlaysa oo yaro wordkaad ku qoratay oo cadeyna ayaad soo dhiganaysaa aad soo gelinaysaa oo ah upload work experience certificate yani shaqo haddii lagu guddoonsiiyey amaba qoladii asxaabada kaga soo lafatay aad la joogtay amaba cid kaleba kuu fududaysay waad soo gashanaysaa laakiin CV-gaaga weyna markastaba ku xusnaataa waxa la work experience qolada inaad la shaqaysay dadka qaar baa marba dhinac cararo waxay sameeyaan wuxuu sameynayaa qofkii CV-giisii work experience-ka qaybtaas maaragtay dadkii ula soo shaqeeyey iyo hay-adii uu soo shaqeeyey meelo kasoo shaqeeyeyna organization in uu reference ka dhiganayaa amaba halkan ku darsanayaana kuma qorna xaggan kale reference-kan uu ku darayaa marka wax lagu leeyahay qofka xagga iska aragteenba tusaalahaan oo kale jaamacadda haddaad dhiganaysay aad kusoo qorato dhiinkaaga amaba maamulka halkaas iskuulka jaamacaddaad kasoo baxday dee iyaga waxbarashadoodii bay ka muuqdaan soo maaha qaybta waxbarashadooda ka muuqdaan jaamacadda ka baxday jaamacaddana hebel haysto ama dhiin hebel ka yahay garanaysaa admission letter admission letter waraaqda maaragtay inaad codsi baynu nagnahay waxaan codsanaya arrintaas in laga aqbalo in maaragtay haddii language test waraaqdii luqadda kale aad sheegtay aad tiri luqadda ingiriisiga waa dhameeyey tusaalaan oo kale full research proposal halka ugu dambeysana waa sidaasi oo ah wixii aad haddaad diyaarisay maxaan sheegay waxa la yidhaahdo researchkii declaration of applicants waa kan okay markaas all agreed baad leedahay I agreed baad leedahay iska akhriyaysaa kale wax saw si weyn maaha intaas kale waa wax kasta dee danahaaga aad leedahay marka waad aqbalaysaa okay halkaas ay ku qoran tahay application summary-gana download ayaad odhanaysaa okay walaalayaal waxaan rajeynayaa khayr fara badan insha allah wixii su-aalaha ee arrintaa khuseeya isoo weydiiya xagga hoose insha allah igu soo qora wax badan ayaan insha allah aynu
arrintan iyada aan asxaabta jecel aynu xiraynteeda iyo maaragtay iyo arrimaha khuseeya wax badan baynu insha Allah ka hadlaynaa, aan ka caawin doonaa insha Allah. Soo dhawaada. waa Islamic Development Bank, waxa weeyaan scholarship ku bixinayay. wixii su'aalana xagga hoose ku reeb. fadlan subscribe, like iyo share. qof kastoo aad aqoonta la jeceshahay iyo dadka Soomaaliyeed ku share garee. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.